Joy Metheny waxa uu dhashay sanadkii 1955 waxa uu ka mid ahaa 6 caruur ah oo ka tirsan qoyska Metheny. Aabiis waxa uu dhintay asaga oo da'diisu tahay 6 sano. Waxa uu ku dhintay shil gaari asaga oo maraya galbeedka Virginia. Joy Metheny aabiis marka uu geeriyooday 6 caruur ahaa waxa ay ku soo dhaceen meel cidla ah waxaana kafaalo qaaday hooyadood oo shaqayn jirtay shaqooyin kala duwan iyo xilliyo adag. Waxa ay ka shaqayn jirtay sida kabalyeeriga waxayna doonaysay inay caawiso caruurteeda gaajeysan. Joy hooyadiis waxa ay wax walba u sameeynayay caruurteeda gaajeysan waxayna doonaysay in caruurteeda ay ku noolaadaan nolol caadi ah halkii la geyn lahaa xarumaha agoonada meeshaas oo ay ku koraan. Laakiin arinta hooyadiis sheegtay mid ka duwan ayuu Joy sheegay. Joy Metheny waxa uu sheegay in uu ku soo koray nolol adag darbi jiif oo iska ahaa meelahan uu iska wareegi jiray aysan jirin cid ka taxadari jirtay noloshiisa. Laakiin Joy hooyadiis waxa ay diiday eedeymaha uu soo jeediyay wiilkeeda waxa ayna sheegtay inuu ahaa Joy mid ku fiican iskuulka waxa uuna iskuulka ku aadi jiray baaskiil. Intaas kadib waxa ay sheegtay in Joy uu ahaa mid eedaab badan akhlaaq badan saaxiibo badanna leh. Muddo kadib Joy waxa uu gooyay xiriirka hooyadiis waxa uu u safray wadanka Jarmalka asagoo oo da'diisu ay tahay 18 sano. Waxa uu ku biiray ciidanka waxaana loo qaaday dagaalkii Vietnam qaasatan waxa uu ku biiray dhanka qaybta madaafiicda ciidanka. Halkaas inta uu ku sugnaa waxa isbedelay guud ahaan dabeecadiisa waxa uuna ku dhacay dambiye fara badan waxa uu qabatimay daroogada noocyadeeda kala duwan. muddo 10 sano ah oo aysan wax xiriir ah hooyadiis sameeynin waxa uu ku soo laabtay wadanka. Intaas kadib waxa ay isbarteen gabar kale ayaduna waxa ay ahayd mid sidiisa oo kale daroogada aad u isticmaasha laakiin waxa ay u dhashay wiil. xiriirka kala dhaxeeyay gabadha Joy uu guursaday oo ayadana ahmaandooriyaha qabatintay waxa uu ahaa mid ay buuq fara badan hareeyeen. Joy wuxuu ahaa mid shaqeeya si uu u quudiyo qoyskiisa waxa uuna ka shaqayn jiray gawaarida xamuulka. sanadka markuu ahaa 1994 bishii July maalmaha ka mid ah waxa laga codsaday inuu shaqeeyo shaqo dheeri ah wuxuuna waqti dambe guriga ku soo laabtay ayadoo aysan joogin xaaskiisii iyo wiilkiisii 6 sano jirka ahaa. aad ayuu u shakiyay wuxuuna ku shakiyay in ay joogaan magaalada ayna la nooshahay nin kaleeto. muddo kadib waxa uu Joy dacwad ku soo oogay xaaskiisii hore asagoo ku tilmaamay inay tahay qof aan wanaagsaneyn jirkeedana ka ganacsata sidoo kalena qaab qarsoodiya daroogada ku iibisa. wuxuuna maxkamadda ka codsaday in wiilkiisa lagu soo wareejiyo halkii ay korin lahayd naagtan xun. laakiin maxkamadda uma aysan ogolaan waxaana wiilkii loo xukumay inay haysato hooyadiis. Joy wuxuu aad uga carooday go'aanka maxkamadda ka soo baxay ee wiilkiisa u xukuntay in ay haysato hooyadiis. wuxuuna go'aan ku gaaray inuu dilo xaaskiisa iyo ninka cusub ay saaxiibka ka dhigatay. wuxuuna ballan qaaday inuu ayaga dhamtirtiri doono. maalmaha ka mid ah waxa uu tagay buundadii awal ay isku barteen meeshaas ay daroogada ku iibin jireen laakiin waa uu ka waayay xaaskiisa iyo ninkii cusbaa. wuxuuna meesha ku arkay 2 nin oo saaxiibo hore u lahaan jiray xaaskiisa wuxuuna weydiiyay inay arkeen xaaskiisii hore. kadib uma aysan sheegin waa ay ka qariyeen wuxuuna go'aan ku gaaray inuu dilo. cadcad ayuu u jarjaray asagoo oo u isticmaalay faas. sida uu sheegay isla habeenkaas waxa uu dilay gabar kale taas uu ka doonayay macluumaad waxa uu sii jiray daroogo. kadib markii uu ku guul dareysatay inay macluumaadkii uga baahnaa ay xaaskiisa hore u soo gudbiso waa uu dilay waa uu kufsaday kadibna waxa uu ku soo aasay meel magaalada ka baxsan. labadii hore uu dilay oo wabiga ku tuuray waxa helay nin kalluumaysi ah kadibna waxa uu gudbiyay booliiska markii ay baaritaan sameeyeen waxa ay meesha ka heleen faaskii Joy. intaas kadib Joy waa la soo xiray 18 bilood kadibna waa la soo daayay kadib markii lagu waayay wax cadeyn ah. Joy markii la soo daayay waxa uu noqday mid xor ah wuxuuna meeshaas ka sii waday in uu dilo haweenka jirkooda ka ganacsada iyo kuwa daroogada qabatimay. Joy waxa uu kireystay guri wadada saarnaa meel gees ah. intaas kadibna waxa uu dilay 2 gabdhood waxa uuna ku dhex aasay guriga dhexdiisa. kadib waxa ku soo dhacday inuu furto sandaqad lagu iibiyo waxyaabaha macmacaanka sandwichka iyo hamburgerka. sandaqadiisa waxa uu ku iibin jiray hamburger uu ka sameeyay hilibka looda. intaas kadib waxa uu bilaabay in dadka uu qalo hilibkooda uu ku dhex qariyo. waxa uuna mar warays uu bixiyo uu ku sheegay in hilibka bini'aadanka uu u soo dhadhamayo sida doofaarka oo kale. wuxuuna tala ahaan ku bixiyay in aadan cunin waxyaabaha lagu iibiyo wadada geeskeeda sababtoo ah waxa laga yaabaa in qof aadan aqoon hilibkiisa aad cunayso. soona xasuusta sheekadan
intii aadan gadanin waxyaabaha macmacaanka ah ee lagu gado wadada geeskeeda. ugu dambeyntii Joy Metheny waxa uu ku geeriyooday xabsiga 2017. daawade haddii meeshan soo gaartay muuqaalka like saar, kanaalka daa ku cusub tahay subscribe saar, sidoo kaleeto faaladaada quruxda badan qaybta hoose inoogu reeb.